ayaa toddobaadkii hore weerarkadiisa ku qaaday magaalooyinka Yeed, Caato iyo weliba deegaanka Washaaqo oo dhammaantood ku yaala Soomaaliya balse u dhow xuduudda Itoobiya. wararkii hore ee soo baxay waxay u muuqdeen in weerarada bartilmaameedkoodu uu ku egyahay saldhigyada ciidamada liyu booliiska ismaamulka Soomaalida Itoobiya ay ku leeyihiin goobahaasi. hase yeeshee saacada kadib waxaa soo baxday in maleeshiyada Al-Shabaab ay wateen qorshayaal kale oo qarsoon ayna jireen ciidamada loogu talagelin inay weerarada ka qayb galaan oo ay u wadeen inay hore u sii galaan gudaha Itoobiya. gudoomiyaha gobolka Boqol Maxamed Cabdi Tool ayaa galka baarista uga warramay wejigii hore ee dagaalka iyo ciidankii ugu horreeyay ee ka tirsan Al-Shabaab ee u gudba dhinaca Itoobiya. nimankan markay ku dagaalameen magaalada Caato iyo Yeed ay ku dagaalameen maba istaagin. waxa way laba group ah sida ay muuqato laba group ay ahaayeen. group waxa lagu ogaa dagaalkaas inay dadkaas arbushaan oo dagaalamaan oo goobaha oo furinta line ah oo xuduudka inay ka dagaalamaan si ay u gudbaan dadkan u gudbaan. marka dadka gudbay dagaalkaas asagoo dagaalka socday gudbeen wadada Caato ay ka gudbeen waa sheegay mareen siifaan meel yaraan mareen waxa way halkaas ay ka dhaceen waxay ku aadiin marka wadadan oo maxay oo hargeyl ka imaanaysa Tangudi ka imaanaysa meel la yiraahdo Dharay zoonahaas ay ka galeen oo gobolka Baari u socdaan meesha ay ka gudbeen. marka kolley ciidamada new booliska mar badan ay arkeen fakti hore qaar badan waa laga laayay qaar maxaabiis iyo dhaawacna waa la qabtay 16 baabuur oo gudubtay 3 kamid ah ayaa la gudbay kuwana la gudbay inta kale tan waa la qabtay. marka gudahaas markay tageen oo isla dhul buuraley oo dhulkaas waxay galeen meel buura oo istaraatiiji ay galeen. arrintii ayada ahayd shalay idaraad maanta warka ma hayo laakiin wixii shalay ka horeeyay meesha ay ku jireen meel biila ma aha saan u maleynayo goodoon bay meesha ku yina 4 koona laga fadhiyay dhowr maxay oo dagaalna waa galeen. marka nimankaas ayagoo meesha ku jira hadda ugu wardambeysay maadaama ay gudaha galeen laakiin inay sii gudbeen waxaan meeshii baan ku ogaanay in maanta shalay la soo afjiri kartay communication umaylin sidaa way horta gudbida ay ku gudbeen. xaaladda marka haddaan usoo noqdo haye soco Al-Shabaabka haddaan usoo noqdo oo halkay kasoo tababar kusoo qaateen sababma ay kusoo galeen Soomaaliya ciidanka inta leeg sidee loo ogaan waayo su'aasha marka la isku hayo. marka anigu waxay ila tahay aniga naftirkeyga ciidan inta leeg oo soo gudbay aan la arkin. waxa weeye dalka runtii haddii la sheegay dalka dhammaantiis horta meelaha magaalooyinka ama meelaha istaraatiijiga baadiyada waxaa haysta nimankan Al-Shabaab yiraahdo ayaga ka talin magaalo ma ahan meesha baadiyaha iyo istaraatiijiga wadooyinka oo dhan tuulooyinka oo dhan ayaga haysta. marka waa u sahlanaysaa sababtoo waxa waaye nimankan waxay ka yimideen badidooda waxay ka yimideen dhinaca Jubbada Hoose Bu'aale Jubbada Hoose oo gadaal ha noqoto oo meeshan maxay tahay oo xuduudka Kenya ha noqoto Bu'aale agaareed ha noqoto meelahaas ay tababarka kaga soo baxay sidii loo sheegay. marka ninkii jilibka soo tagay mase jilib gadaashiisa meelahaas ka soo tagay Bu'aale soo mar dhulka ay haysteen waa cid ka hor imaanaysa meel Bu'aale ka soo tagayaan waxay soo marayaan maxay tahay wadada dheer ay soo marayaan xamar hagiisa iyo afgo hagiisa maadeen waa dirta buulful ay ka soo dhacayaan buuri bay dhowdhaado ay ka soo gudbayaan. haddana waxa weeye wadadaas halowga ah meel kasta hadday tahayna dhinacan hadday soo maraan wadada luq ay soo maraan waa banaan tahay tan oo tooska ah oo maxay tahay oo kusoo aadan gobolka Boqol kusoo aadana waa banaan tahay magaalo ma soo maraan dhulkii baadida ay wadooyinka dheer haystaan. marka taasaa u sahashay horta inay soo gudbaan oo wadankan soo galaan oo Itoobiya soo gudbaan saasaa u sahlan. maxaad ka ogaateen ujeedadooda iyo waxay u socdaan gudaha Itoobiya markay galeen? Itoobiya waxay keeneen dad marka hore meesha ka yimid waaye dad mucaarad ha noqdaan sadkaas ha ku yimaadaan dadkan horta asalkooda dadka wada waxay ka yimideen meeshaas ay ka yimideen. nimankan deegaankan haysto Al-Shabaabkana gacan saar bay leeyihiin si kastaba ha isku bartaan laakiin gacan saar xoog ay leeyihiin. dadka gacanta ku haya dhubooga ka soo bixi waaye dadka soo gudbiyo waaye dadka u dagaalamay inay inta ka gudbaan oo wadankaas ay sii galaan waaye oo u dhintay. marka nimankaas taariikhkooda saas waaye annaga marka maba ogaan karnaba maxaa jeeray Boqol meesha u dambaysan deganahay haddii Kismaayo laga ogaan waayo oo koonfurta maxay tahay oo South West laga ogaan waayo oo Xamar laga ogaan waayo annaga maba ogaan karnaa. wixii gobolkan gudbayaan yaan ogaan karnaa laakiin markay gobolkan soo galeen asbuuci hore waa sheegin nimankan dhowr meel ay ka soo galeen wadada Tiiro waa ka soo galeen wadadan Waajid ka shees ilaa Ceelboon inta waa soo mareen waa ka soo galeen wada kasta ay ka soo galeen oo maxay inta Boqol isku abaabulay inta sanbay koor halkan abaabula ka jira ilaa asbuuc 2 asbuuc inta abaabula ka socday. marka abaabulkaas markaan aragnay annaga waa u gudbinay dawladda waa soo soo u gudbinay ciidamada waa u gudbinay oo gobolka jooga
وأي نبتكوا واحد يرجعون أنتني باب الوايب أنتني إسقاسينتي باب الوايب إسقاسين كانت تقولين واحد اسمه لا ملا إسقاسين ملا ملا أدو أدرس ملا أنت يكون بان أنت أوبريشن كاسل السمي إسقاسين تم يقدمي إسقاسين تبغى كتالا ودوين كتانا كتالا إلا مقصود إلا أنت وده سيكتالا داس ستيشن ماشي داتين ما الكلي على قدام كار وطن كودان يعني كوفر ده كده يبقى يبقول ستيشن إلا على قدام كار أو يا استر أي است marka iyaga damiyay ayaa damiyaa ciidanka duleeliye xuduudda ka soko waxa la aaminsan yahay inay jireen ciidamo kale oo aan loogu talagalin inay dagaalamaan kuwaas oo qaybna ay ka gudbeen galbeedka Ceelbarde kuwa kalena ay ka gudbeen bariga Ceelbarde gaar ahaan wadada lagu magacaabo Sankudooble ciidankan ayaa la sheegayaa inaysan wali la kulmin dagaal ciidamada ka gudbay bariga Ceelbarde waxa xaqiijiyay gudoomiyaha gobolka Bakool Maxamed Cabdi Tool waxa la sheegayaa inay jiraan koox kale oo ka gudbay dhinacan qurac jooma iyo oo iyagu dagaal ba aan la kulmin kuwa warkooda ma heshay wallahi koodaas qurac jooma ma harso ma ka gudbeen garsi xuduranta dhaxaysay mareen marka meeshaas maraan waxa way hadana Ceelbarde qurac jooma dhacdooda ku aadin meeshaas godeere iyo meelahaas waduudka inay meesha ka galaan waa nolol sheegay laakiin kuwa meel gaari ma meel hoose ma gaarin meelahan dhacdan ay ku jiraan goday anaga inta noo dhaxaysay qalab ay ku jiraan marka kuwaas meelahaas ay ku jiraan inta koox dagaal ay la kulmaan nalooma sheegin waa iska dhigi kartaa inay dagaal la kulmaan laakiin gudbintii meeshaan ay ka gudbeen ururka al-shabaab waxay hore isugu dayeen ugu yaraan hal mar inay gudaha u galaan Itoobiya taasi oo dhacday horaantii sanadkii 2007 kadib markii ciidamada Itoobiya ay soo galeen magaalada Muqdisho isla markaana ay kala daadiyeen maamulkii maxkamadaha islaamiga ahaa ciidamada Itoobiya xilligaas waxay taageerayeen dawladda federaalka ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya ciidamada al-shabaab ee gudaha u galay xilligaas dalka Itoobiya waxa hogaaminayay talii hore ciidamada al-shabaab aadan xaash cayro oo bishii May 2008 ay Mareykanku ku dileen duqeyn ay ka geysteen magaalada Dhuusamareeb isku dayga al-shabaab ay ku galayeen xilligaas dalka Itoobiya ma uusan guuleysanin hase yeeshee ururka al-shabaab waxay sii wadeen qorshayaashoodii ku aadanaa dalka Itoobiya iyaga oo gudagalay inay aasaasaan jabhad ka dagaalanta gudaha Itoobiya jabhadaasi oo la mid ah tan lagu magacaabo Jaysh Ayman ee xilligan ka howlgasha waqooyi bari Kenya iyo gobolka Lamu fikradda asaaska jabhadaasi waxa iska lahaa hogaamiyihii hore ururka al-shabaab Axmed Cabdi Godane waxaana uu jabhadaasi mucaskar uga furay tuulada lagu magacaabo Madda oo bariga ka xigta magaalada Tiyaglow ee gobolka Bakool ciidankaasina waxa uu madax uga dhigay Cali Diyaar oo ka mid ah saraakiisha khibradda leh ee ururka al-shabaab kana soo jeeda gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya laba ila wareed oo kala duwan waxay galka baarista u sheegeen in ciidanka haatan al-shabaab ay u direen gudaha Itoobiya uu korka ka maamulo Cali Diyaar inkastoo ay jiraan saraakiil hoose oo hogaaminaysa ciidamadaasi Cumar Maxamed Abu Ayaan oo hore uga tirsanaan jiray ururka al-shabaab waxa uu galka baarista uga waramay saraakiisha kale uu ogaaday inay hogaaminayaan weerarkan ururka al-shabaab ay ku qaadeen Itoobiya ciidanka hadda waxa hogaaminayo saraakiisha sida Bilal Oromo كعب إنك نهايان يو سكرية ويل يحنين رجس يعيدك وجامينايو لكن جبهة إثيوبيا بود أهم كذا وح لو حساب اللي يرادو على ديار أيام ملحقة نكل لها على ديار جبهة إثيوبيا من ملحقة لكن إذا تقالك وجامينايو وأنا كاسي مدة أنت نجيل كهر وأما ديالنا إن كدين دجانا دعاتي يديو الشباب بحب لو إن جزها إثيوبيا جيستان سنة يهوب هوب كبدنا وحكي بسنة جزها إثيوبيا مركوب بكوسي سمستين سنة بسي جيستين أنت سي جيستين مركب ماشي هوري أنت ديالنا عندين gudaha ay wax ku sameeyeen oo dad badan bay ku sii tashkiiliyeen dad badan bay ku dhaxleen Itoobiya gudaha Itoobiya ee la shaqeeyaan marka muddo dheer waxa ka soo shaqeynay jabhadana fikirkeedii asaaskeedii hore waxa iska lahaa Axmed Cabdi Godane fikirkeeda ugu horeyso waxa lahay in Godane ama wasiir loo yaqaanay amiirkii hore ee la dilay laakiinse xogga ugu badan waxa saaray Axmed Yiri ayaa saaray oo asaga deegaan ahaan Itoobiya ka soo jeedo wuxuu rabaa marka deegaankiisa inuu geeyo jabhadan bishii Juun 2014 ururka al-shabaab waxay weerar ku qaadeen deegaanka Caato oo ay ku dileen ku dhawaad 40 qof weerarkaasi waxa uu horseeday in gobolka Bakool oo ay ku jiraan deegaanada Caato iyo Ceelbarde ay soo galaan ciidamada liyu booliiska
bishii August 2014 ciidamada Itoobiya oo ay la socdaan ciidamada liyu booliisku waxay qabsadeen magaalada Tiyaglo iyo deegaanada ku xeeran. tuulooyinka ay weerarka kadiska ah ku qaadeen waxaa ka mid ahayd tuulada Madda. ilawareedyo aqoon u leh howlgalkaasi waxay galka baarista u sheegeen in ciidankaasi ay gacanta ku dhigeen diiwaankii jabhadda al-shabaab ee loogu talagalay inay weeraraan Itoobiya. diiwaankaasi ay ku jireen tababarkooda iyo istiraatiijiyadooda, kuwaasi oo ku xaraysnaa kombiyuutar. maalmo kadib howlgalkii lagu qabtay Tiyaglo iyo tuulada Madda, Maraykanku waxay duqayn ku dileen hogaamiyihii ururka al-shabaab Axmed Cabdi Godane. hase yeeshee jabhaddaasi waa sii jirtay. hogaamiyihii bedelay ee Axmed Deeriye oo loo yaqaano Abu Cubayda ayaa jabhadda goor dambe ku kala daray ciidamo kala duwan. sababtoo ah sanadkii 2015 ururka al-shabaab waxaa si weyn u gilgilay soo bixitaankii ururka Daacish, iyadoo saraakiil ka tirsan ururkaasi ay sheegeen inay ku biireen Daacish, kuwaasi oo qaarkood la bartilmaameedsaday, kuwo kalena ay ka carareen deegaanada ururka al-shabaab. xilligaas oo ururka al-shabaab ay ka cabsi qabeen in jabhaddaasi ay gaar isku soocaan ayna ku dhawaaqaan go'aan ay ugu biirayaan ururka Daacish. bishii Oktoobar 2016 ciidamada liyu booliiska iyo kuwa Itoobiya waxay ka baxeen deegaanka Tiyaglo iyo deegaanada ku xeeran, iyo weliba magaalooyin kale oo ay ka mid yihiin Rabdhuure iyo Garasweyne. al-shabaabna waxay dib u qabsatay deegaanadaasi. Abu Ayaan oo ka tirsanaan jiray ururka al-shabaab waxa uu aaminsan yahay in jabhaddaasi mar kale dib loo ururiyey sanadkii 2018. muddo dheer ayay ka shaqaynayeen horta sidii ay gudaha Itoobiya ku galaan ilaa 2009 ayay jabhadani dhahay jabhadda Itoobiya dhahay ayay asaasneed. marka marar badan way fashilmeen. markastay gudaha u galeen saddexaanba waxaa sirdoonka Itoobiya ayaa ogaa jirtay waa la fashilin jiray. 2015 camal waxay ka shaqeeyeen ninkii amiir ku ahaa dhan jabhaddaasi inuu u janjeero dhanka Daacish. kabacdina jabhadda waa kala direen, dhammaantood waa kala direen. kabacdi waxay dib u bilaabeen 2018 ay dib u bilaabeen jabhadda Itoobiya nooleeyaan, waxaana madax loogu dhigay nin la dhahayo Qorgab. isbedeladii Itoobiya ka dhacay horaantii sanadkii 2018 waxay qaar ka mid ah gobolada waddankaasi ka abuureen xasilooni darro iyo qalalaaso siyaasadeed, kuwaasi oo ugu dambeyn bishii November 2020 keenay inay dagaalo culus ka dhex qarxaan dowladda dhexe iyo ciidamada Tigray. gobollo kale oo ka tirsan dalka Itoobiya oo ay ka mid yihiin Oromiya iyo gobolka Amxaaradana waxaa ka sii socday qulqulatooyin u dhexeeya qowmiyadaha waddankaasi. Abu Ayaan waxa uu aaminsan yahay in xiisadahan ka jira Itoobiya ay ka faa'iideysanayaan ururka al-shabaab. haddaba maxay tahay ujeedada ururka al-shabaab? khubaradu waxay ku doodayaan in weerarkan uu bilow u yahay istiraatiijiye al-shabaab ay ku doonayaan inay joogitaan muddo dheer ah ku yeeshaan dalka Itoobiya, gaar ahaan koonfurta bari ee buuraha gobolka Baale, kuwaasi oo ku teedsan xuduudda gobolada Soomaalida iyo Oromada. khubarada sidaasi qabtana waxaa ka mid ah Matt Bryden oo aqoon durugsan u leh arrimaha geeska Afrika, kana tirsan macadka cilmi baarista ee Sahan Research. waxa uu sheegay in wararka hordhaca ah ay muujinayaan in al-shabaab ay gudaha u galeen Itoobiya ilaa 100 kilomitir, welina ay firfircoon yihiin. Matt Bryden waxa uu intaas ku daray in diyaargarowga howlgalkan lagu qiyaasi karo inuu socday ilaa 1 sano, isla markaana dhowr kun oo ka tirsan maleeshiyada al-shabaab loo qeyday inay qayb ka noqdaan taliskooda u qaabilsan Itoobiya. sidaasi darteed waxaa suurtagal ah ayuu yidhi inaynu aragno isku dhacyo kale mustaqbalka. khubarada aqoonta u leh al-shabaab waxay aaminsan yihiin in ujeedada al-shabaab ay tahay inay calankooda ka taagaan gudaha Itoobiya, ayna muujiyaan inay ka dagaalami karaan wadamo kala duwan oo ku yaala geeska Afrika. inay calankooda meel ka taagtaan gudaha Itoobiya maxay ka dhigan tahay? waxay u dhigan tahay guul weyn inay gaareen. waa guul ay ku haminayeen muddo dheer, ku haminayeen inay gudaha Itoobiya u galaan, Itoobiya calankooda ay ka taagaan. guul weyn bay u tahay. talabaad waxa waaye nimankan waxay rabaan inay noqdaan jabhad weyn oo isku magacaabeen ardul xabashiin. dadka marka haddii Itoobiya calan ka taagaan waxay isdhahayaan alle lehe jihaadiinta rag sheeganaya ee caalamka daafeeda kala jooga dhan way kusii maxay ahayd dhiiranayaan inay soo taageeraan al-shabaabka. sidaas ay isleeyihiin sidaas weeyaan. weerarkan ay qaadeen ururka al-shabaab ayaa sidoo kale qayb ahaan muujinaya guuldarro dhinaca sirdoonka ah. gudoomiyaha gobolka Bakool Maxamed Cabdi Tool waxa uu aaminsan yahay in inkastoo ay ahayd inay ogaadaan mukhaabaraadka maamulada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed iyo weliba dowladda federaalka, haddana al-shabaab inay ka faa'iideysteen mashquulkii doorashada Soomaaliya. sida ay la tahay nimankan ugu yaraan 6 bilood 7 bilood 8 bilood abaalkaas waa jir. annaga waxa weeye dhowr jeer waxaa naloo sheegay in tababar lagu hayo meel la yiraahdo Hargeysa la yiraahdo jilib agaareeda meelahaas ah
in xari weyn oo tababar lagu sameeyo ay jirto tababarkaasna uu socdo anagu waxaan u haystanay maxay tahay tababarkaas in al-shabaab ay tahay laakiin ma ahayn dadka la tababaray dadkan ahayn marka sababta loo ogaan waayo waxaa weeye annaga dadka muhaabaraadka ka shaqeeya shaqadaas horta iskale annaga boqol ahaan programka anagu wuxuu ka yahay markii la dhaafo gobolka baay wixii ka shisheeya waxaa iskale dadka muhaabaraadka ka shaqeeya ayaa iskale oo dowladda federaalka ha noqoto mise dowladda koonfur galbeed ha noqoto yacni koonfur galbeed ayadaa lasoo maray jubbada hoosaa lasoo maray dadka la rabo inay ogaadaan dadka ku nool jubbada hoose iyo dadka maamul goboleedka jubbada hoose ee maamul goboleedka gobolka south west maadaama lasoo dhexmaray ayagaa la rabo inay ogaadaan waxan meelay u socdaan laakiin sababta kala fiidintii la ogaan waayo waxay ka faa'iidaysteen doorashadii iyo abaabulkii madaxweyne doorashadiisii barlamaankii ayadoo mashquul lagu jiro ayay ka faa'iidaysteen nimankaan marka arrintoodii sidaas ay suurtagal ugu noqoto in la ogaan waayo ururka ONLF ee ka jira deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa war-saxaafadeed ka soo saaray maalin kadib weerarka ay al-shabaab ku qaadeen deegaanadaasi waxayna cambaareeyeen weerarkaasi iyagoo ugu baaqay taageerayaasha ONLF inay garab siiyaan hay'adaha amniga maamulka deegaankana waxay ugu baaqeen inay xoogga saaraan ka hortagida ururka al-shabaab iyo badqabka dadka deegaanka Soomaalida dhinaca kalena warmurtiye toddobaadkan ka soo baxay golaha ammaanka ee dowlad deegaanka Soomaalida ayaa lagu sheegay in maamulku uu soo afjaray dagaal lala galay maleeshiyaadka ururka al-shabaab oo galay deegaanka Afdheer maalintii Arbacada ee toddobaadkii hore warmurtiyeedkaas ayaa maamulku uu ku sheegay in ciidamada deegaanka ay al-shabaab ku hareereeyeen aagga Huluul dhammaanna la laayay sida lagu sheegay warmurtiyeedkaasi waxaana maamulku intaas ku daray in la dilay in ka badan 100 xubnood oo ka tirsan ururka al-shabaab warmurtiyeedka maamulka ayaa intaas ku daray in al-shabaab laga gubay 13 baabuur oo ay wateen lagana qabtay hub isgaarsiin iyo agabkii kale ay wateen maamulka deegaanka Soomaalida waxay u mahad celiyeen dadka deegaankaasi oo ay sheegeen inay qayb libax ka qaateen howlgalka ururka al-shabaab ayaa dhinacooda sheegtay inay weerarka yeed caato iyo shaqo ku dileen 87 askari oo ka tirsan ciidamada liyu booliiska oo ku sugnaa deegaanadaasi dhammaan sheegashooyinkaasi ma aha kuwa ay si madax bannaan u xaqiijisay idaacadda VOA hase yeeshee idaacadda VOA waxay la hadashay Sakariya Cabdi Khaliif oo ah taliye ku-xigeenka ciidamada liyu booliiska oo sheegay in markii uu wareysiga bixinayay uu ku sugnaa deegaanka caato waxana uu sheegay in isku dayga al-shabaab uu fashilmay sida uu hadalka u dhigay isagoo qodobkaasi ka hadlayayna waxa uu yidhi isku dayii ay soo sameeyeen nimanka budhcadda ah ee argixisada al-shabaab ee xadkan aan la wadaagno gobolka Bakool ee Soomaaliya aan kala wadaagno deegaankeena uu la wadaago isku day ayay ka sameeyeen isku daygaas oo fashilmay qayb ka mid ah waxa weeyaan xerihii aan ku lahayn xadka ayay isku day ku sameeyeen laakiin waa ku fashilinay anna hadda waxaan kala hadlayaa qowlaha aaqa oo xadka aan kala wadaagno gobolka Bakool ee Soomaaliya kala wadaagno warar soo baxay maalintii shalayna waxay muujinayaan in ciidamada deegaanku ay dagaal kala la galeen maleeshiya ka tirsan kooxda al-shabaab deegaanka lagu magacaabo Laas Qurun oo 20 kiiloomitir u jirta degmada Feerfeer dagaaladan ayaa ciidamada liyu booliisku ay guulo ka sheegteen dhageystayaal waxay iga xasuusinahay inaan la xiriiray mas'uuliyiinta ismaamulka Soomaalida ee Itoobiya aniga oo ka codsaday inay wareysi siiyaan barnaamijka galka baarista marka ugu horreysay ay ogolaadaan wareysigaasina waanu idiin soo gudbin doonaa